9 kiiloomitir iyo socod saaca dhul dihin oo baahan deegaamo cajiib oo aan lagu dalxiisin biyo macaan oo durdura dalagyo baxay oo laga baahan yahay waa caqabadaha Calmadow ka jira si aan u soo tabino subax axada ayaanu roobadayada ka raranay hotel Allay magaalada Badhan jidka in yar ayaa la qaadaa kan Boosaaso ee jeyga lagu masaxay marka xakamaha la joogo halka gawaarida lagu hubiyo ayaa la dhiftaa mid kale oo Calmadow u jahaysta wadadib dhulka Badhan ku taal marka dheega waqooyi bari la aado waa raacin xoolo daaqeen ah laakiin oo manaw badan inta aan cashar la cuskan wadadu waa caadi oo ma caqabad badna dhulka intii aan soo dhaafnay waxa ahaa dhul banaan oo raacina waxaan soo gaaray meelihii cayriyamada lahaa laakiin Calmadow wali ma tagin cagaag aan saacada gaarigu kacayn waxa ay ka bilaabataa halka waa marka la socdo 20 kiiloomitir oo casha la cuskado jidka waxa loo yaqaan Geeldoora waa kan kaliya isku xira oogo iyo xeeb gobolka Sanaag dhulka aanu marayno dhirtu kuma badna wadadu waxa ay martaa meel duud ah oo labada dhinac luga ka xigaan laag walba isheeda waxa ku yaal godad xoolaha lagu xareysto maadaama dhirtu yar tahay xilliga roobka xooluhu god kama maarmaan deegaankan cimilada darteed marka aan 3 saac soconay ayaan gaaray halkan laba ka dhigta biyaha casha inkastoo ay ka dhir tahay casha inteeda kale ee madow haddana geed la rifay waa halka ugu dheer 2000 oo fiit ayay jooga badda ka sarreysaa waxa ay kala qaybisaa biyaha xagga midigta iga xigta biyaha u dhaca waxa ay badda cas kaga daraan laas qoray kuwa bidixda iga xigana waxa ay maraan dhinaca Baran markii dhowr tog isu dhiibtana waxa ay ku daraan badweynta Hindiya wala ka dhaxan badan inta kale ee casha waxa ka soo boodaysa dabayl wixii aan cuf lahayn oo la tuuro ha ka yaabin inay hoos tagaan goobtan ayaan uga degnay dhulkii xeebta u jeeday ee budhiga u ahaa socodkayaga waxa laga xukumaa laas qoray degmo qadiimiya oo ku taal badda cas xabaasho wacale magaaladii koowaad oo aanu tagno waa tan kaliya ee saaran jidkan xiriiriya laas qoray iyo Badhan sidoo kale waxa dhex marta wado kale oo casha la wareegta waxa aanu u raacnay dhanka bariga dhulka ay naga xigaan deegaamadii beeraleyda ahaa haddaanu dhaqaaqnay ayaan la kulannay qoyska halka degan oo ariga bariisinaya waa 8 subaxnimo xoolaha lama sii daayo ilaa qorraxdu qallajiso geedihii xalay sayxu qooyay waxa laga dhowrsanayaa in afka booge kaga dhalato ariga Faarax Maxamed Ducaale odayga qoyska ayaa noo waramay oga suuqa uun baa hadda xoogaa noo daran suuqa magaalooyinka sayladaha xooluhu waa qiimahooda hoos buu jira doolarkiina waa kacay xoolihii wax lagu iibsadaaba lala yahay iyada taas waan haysaa masaafadu ma dheera caqabaduse waa marinka meesha aad u socotay oo ku dhow ayaa jidku kugu khasbaya inaad maaraysato oo muddo soo wareegto waxa aanu soo gaaray moon cilbiya macaan inta badan togaga casha ka dilaaca biyahoodu waxa ay gaaraan macagta xeebta u dhow waa durdur dadka deegaanku biyaha iska socda waxa ay ugu yeeraan badowlaho marka dalcadda moon la isku taago waxa la soo gaaray Calmadow dhulkiisa ka dhanaanu soo jafaynay dadkii deegaanku waxa ay noo sheegeen in loo yaqaan calcad inta ku cusubse waa cagaar la yaab leh wadadu dayactir ma hesho dhirtan madaxa isla gashay gaariga isku duuga waxa ay kala hartaa dheeha darawalka yaqaan waa ka taxadaraamida waxaan gaariga u marinayna dhalaasada iyo saliida u marinayna walaal de gaariga maanta la dhir noqdayo wala xariiq miran buu noqday marka waxaan marinaynaa si dhirtu eego sibata gaariga waxaanu halka kula kulannay gaarigii naga soo horreeyay oo jidka jaray ma dhaafi karo gaariga aanu wadano oo ma jirto wado kale oo labada gaari isku weydaaran karto Maxamuud Yaasiin ayaa noo waramay oo noo sheegay caqabadaha ka jira dhulkan dhibaatada nagu haysata wadada gaariga aad aragtaan hadda meesha ku jira wuxuu qaadi lahaa qudaar uu socday inuu markad ka soo qaado halkaas ku xidhan yahay gawaarida kale saas ku xidhan 2 bilood ama bil baa gaarigii kaliya meesha ku jira qoyaankani ma aha biyo ka haray roobab daay dhawaan waa dhul markii taayirku maro soo butaaca
oo aan biyuhu meel fog jirin kii yaraa ayaannu wadanay ayaa baraxay gaarigii raraa si uu dhiiriga uga gudbo waxa aanu gaaray maalintii oo dalool tegey 1:00 duhurnimo deegaamadii beeralayda ahaa moon mirci ragaad iyo markad dhammaantood beeralayda waxa u dheer wax xoolo dhaqato aan guurguurin cashu waxa ay u qaybsantaa 3 kala sarreeya dhaarca hoose ee xeebta xiga waa godoob marinka dhexe oo aanu joogno waxa loogu yeeraa madar keligii ayaa wadada gawaaridu martaa waxaa jira marino hoose oo go'doon ah xarigan aan hayo waa xarig isku xira 2 tuulo oo adeega loo kala gudbiyo raar balag waa halka iga hooseysa iyo ragaad oo meel sare ah xarigan laguma xiro bini aadan laakiin sahayda kale oo dhan ayaa lagu kala gudbiyaa iyadoo markaas miisaanka la ilaalinayo uu qaadi karo ka ah 2 tuulo ragaad tuulo la yiraahdo iyo raar balag isagoo uu kala adeega meesha gaarigu dhigo raashinka reerka hoosena loogu xiro ugu yaraan 50 kiilo marka waxa weeye biyahaasina inta aad joogtid halka inaad qorrax aragto waa dhif qabowga dhacaya ma aha dhaxan aad u qarqarayso neecaw yar ma ahee dabayli ma jirto dhirta dhaadheer waxa ay sahashay dugsi kaymahan jiqda ah waxaa ku yaalla meelo bannaan oo loo yaqaan gaso waa halka la degan yahay tani waa mirci beeralaydii aanu ku hoyanay bilow warsame oo ka mid ah dhallinyarada dalxiiska jecel haynoo warramo calmadow waa meel aad u cajiib ah waa meel ku wanaagsan dalxiiska iyo bilicda indhaha u wanaagsan waa meel hodona oo dihin waxa jirta caqabad oo sida lagu soo gaaraya way adag tahay calmadow laakiin caqabadaas iyo safarkaas soo gashay waxaad ilaawaysaa markaad soo gaadhid calmadow gudaheeda ayaa daalku kaa hadhaya markaad timaadid dhulkan aadka u quruxda badan cagaarka ah buuraha leh cimiladu wanaagsan tahay markasta roobku da'ayo daruuraha iyo nimcada aad arkaysid ma aha inaan dhiiri gelinayo laakiin waa xaqiiq qaadka Soomaaliya ay soo geliso Kenya iyo Ethiopia inuu dalka ka baxo halkan waa mirci oo ku taal calmadow kana tirsan degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag waxaa jira beero gaaraya 80 oo uu ku yaalo qaadka noocan ah dadka deegaanka ayaa nooga warramay arrintan waxaanu beernaa qaadkaas oo heerari ah oo wadani ah weeye oo haddii wado loo helo ku filan Soomaaliya oo dhan dhammaanteed oo la hagaajiyo oo la tayeeyo laakiin dawlad la'aan bay haydo annagu baan iskala tabci jirnay ragga beeraha jaadka halka kule waxa ay aaminsan yihiin haddii ay jid heli lahaayeen inay dhaqaale ka samayn lahaayeen jaadka halka ka baxa waxaan idin sheegaynaa haddii qaadadkani ay heli lahaayeen fursadahooda iyo dhaqaalahooda iyo wadooyinkooda inaan qaadka Kenya iyo Ethiopia keento dhaqaalaha Soomaaliyeed u baxeen 15 qof oo aan wareysanay intaan joognay halka waxa ay ka siman yihiin hal mid oo ah caqabadu inay tahay wadada xaamilooyinka iyo umuluhuba waa ku dhibaataysan yihiin tii xanuunsato oo uurle gaari lagu qaado lama helo wadana ma jirto xabad kiniin oo la siiyo male xabad dhiig joojina male xabad dawaa male tan umulaysa waa la mid tii ugu dambeysay kal hore way ku dhimatay waa dhiig baxday way dhimatay qabriga la geeyay waanu geynay xasan xirsi axmed waxa uu noo sheegay in duruufta dadka halka ku nool ay bartay duruuso kale oo khatar keeni kara qofka anigu halka aanu daawada ka dhigano dab baanu saaraa xolo dab ah qofku markuu xanuunsan ilka ka xanuunsado dab baanu qaadnaa xanuugeena bahal iska weynaado maxaara ama toori baan ka saarna ruuxu markuu uu mulaayo wax kale goortaan garan weyna sidii sawaayada horeeto baan xidid u soo qodna dhir baan xidid uga soo qodna wala bargeedkan ku eega calaashada geedku inuu dilo Allahu a'lam waxyaaba aan ku noolahay waxyaabaha marin xumaanta deegaankan ka jirta waxa ay caqabad ku noqotay noloshii kale ee dadka inta aan horumar la gaarin halkani ma leh meelo ubadku wax ku bartaan waa tan Xaliimo Cabdi Axmed oo ka mid ah waalidka halka degan caruurtu ma haysato aqoon diin iyo maadiyan midnaba ma haysato goob caafimaad oo lagu daweeyo waad ogtahay caruurtu iska xanuuna badan tahay shuban baa ku dhaca xanuuna kala ku dhaca meel ama irbad laga dhifto ama kiniin ay ka helaan midna ma laha waa meesha duurka ah oo hayjada ah almadow waa dhul taaga waxa dadku si joogto ah u dhageysanayaan warbaahinta Daljir FM-ta Boosaaso. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.
aragtaan iyo si walba noo dhegaysanaysaan saaxiibayaal kusoo dhawaada kuna soo darka barnaamijka muuqaalka bulshada oo si toosa maanta idinkaga imanaya xarunta maxamed xasan dhalo warbaahinta daljir almadow